dhaxalkii awoowayaashee la lumiyey hadiyadii rabbi ee riyaalaadka la siistay khiyaamadii qarankee shacabka loo qurxiyey magaaladii dhowrka milyuun la dhaafsaday afmiishaaradii hadimada gabaadka u noqday boqolkii wacad ee misna wada buray xeebtii bahaluhu dhaxleen berbera wehelkii malaayiintii lahaa laga mulki wareejay wax kastoo la filayay bilow iyo dhammaad sal waxa uu ahaa ballanqaadiya shacabkiiyo golayaasha dalka lagaga ilaalinayay inay ka hor yimaadaan heshiisyo isbarkan oon midkoodna dhaayaha cid saartay jirin haatan waxaa dadweynaha hortooda yimid xaqiiqada sababihii loo fool eryayay heshiisyadii berbere lagu xaraashay iyo dantii shisheeyaha carbeed ka lahaayeen oo ay qayb ka yihiin kawaanka dhiigga shacabka yamaneed xabaalo dhulka hoostooda ku yaalla oo dadaan dhiman looga dhigayo hooy waa xabsiyo barxad iyo bogcado bad iyo berriba dad aan waxba galabsan laga duqeeyo iyo qalwiyo edeg laga yeelay marsadii berbera hantidii ahayd madiga hadiyadii rabbaaniga ahayd inkastoy weli dhibanayaashu waa shacabke ay ka dhoohan yihiin waxaa iyagu soo taagan dadka hortooda siyaasiyiintii rag iyo dumarba washamsida ku qaaday sidii berberahoy ugu noqon lahayd maafiyada carbeed ee duubabka xidhan inkastoo dadaal weyn xisbiga talada Somaliland hayaa xilligan ugu jiro iskala qaybinta labadii xukuumadood ee talada u kala dambeeyay taasoo ay uga gol leeyihiin in shacabka ay u tusiyaan in shalay reer hebel talada haye maantana reer hebel talada hayo si shacabku tuulaba tan kale hayb ugu difaacdo hadimooyinka labada xukuumadood taasi oo beddelkeedina ceebtii khiyaamo qaran iyo eedii la wada yeelan lahaa aan loo helin meel loo raaco iyo cid lagala xisaabtamo bari ka maalin bal haddaba si jariimadahaasi oo aan la mahadin doonin heshiiska loogu ahaa aan shacabka u muujinno heshiiskii rasmiga ahaa waa maqan yahay sababta keentay warbixinta ayay idinku daawan doontaane aan marka hore si aynu u fahanno inay berbere khiyaamo qaran sahayatay taasoo lagu malgay warqado af Soomaali ku qaran oo farshaxamiistayaal maalqabeen haatan u dallacay loo soo adeegsaday aan dib u tirinno wax kasta iyo wacdadii buray sababta aan u jirin heshiis Somaliland gashay amaba geli kartay madaxweynihii berbere dhaxal wareejay shalay muxuu aaminsanaa dunida international law baa jira dabaa la asaasanay idina macaarifiisa soo qaadbay waa been macaadin lagu soo saaraya ma jirto kuwa saliidda kuwii berigii hore la warisiyo mereba force major meel ugu xidhan waxaa la warasiinaya waa qashinka nuclear-ka ah lagu quluwayo meelaha loo qaadanaya بلوكيبل بانو قادرنا بلوكيبل بانو قادرنا والله سو سارن يا ركب مالو بقار بلا بحشا ما قشي ثم لو دادن يا لكين يا بقى wax kale oo laga jeeda bisku waxay ku soo saaraysaa bisku tan barlamaan lama soo marsho marka anagu taaganay golaha si kooban wixii mas'uul kastiba ka hor akhriyay ma fuleen madaxdii mindida daabkeeda lagu aaminay iyo golayaashii la afduubay shalay mid ka wareehoodi rumoobeen maanta shirkadda Dubai World waxay noo ballan qaaday in shaqaalaha dekadda imka ka shaqeeya sidii uu yahay ay u qaadan doonto shaqaalaha dekadda ka shaqeeya waa afar nooc mid wuxuu u shaqeeyaa wasaaradda maaliyadda customs-ku ka shaqeeya kaa waxba iska bedeli maayaan cashuurta dawladda waxba iska bedeli maayaan shaqaalaha labaad wuxuu ka shaqeeyaa marine service amba hawlaha badda kaasoo heshiiskaba kuma jiro sidiisuu ahaanayaa shaqaalahan wax ku kordha mooyaan markay maraakiibta badata mooyaan waxba ka dhici maayaan dakhligu kuma eka tiradoo keliya waxay naga soo gelaya dekadda afar dakhli marka laga reebo ka kastamka oo isagu siisuu socon doona mid waa kaa tiradan taabtay midna waa 10% dakhliga soo gala dekadda oo dhan iyadan kharashka laga reebin midna waxa weeye marka laga reebo kharashka macaashka oo loo qaybsanayo 5% 30% 60 waxa ka wantaa inoo dheer dakhliga naga soo gelaya hawlaha maraakiibteena gaar leenahay waxaan marka hore cadeynayaa
oo aan doonaya inaan tilmaamo this documentkaas ma aha heshiiskii concession agreementkii ma aha xagga ugu dambaysana way ku taallaa inaanu sina u noqon karin ama u bedeli karin concession agreementka la wada galay maxaa loo keeni waayey concession agreementkii kobi ka mida maxaa golaha loo keeni waayey maxaanu si ansixinnaa ma agreement maqan baanu ansixinnaa siduu valid u noqonayaa sharciyan wax kaa maqan inaad gacanta u taagto golahaas wuxuu ansixiyaa sharciya hadduu diidana waa gaar waxba la wadi maayo haddaad taageertaan mudanayaal kaas uunbaa sharciya ma lama geli karno DB waxaa wax ka duwan haddaanu la galnana waa dembi qaran dekedeenna yar u horseedi maayo intan qura wax laynala wadaago ama erayada suuqdaga suuqa aanu ka maqallo waxaa ka mid a mateenna yar baa wax laynagula dhuuqaya waxaanu leenahay maya waa kaa hortiinna yaalla shaqada ugu horraysa dekedda laga qabanayaa waxaa la dhisayaa deked cusub oo 400 oo mitir ah iyo 520 yaard oo extension sida uu heshiiska aanu idinkeenna qeexayo hal sano gudaheed ayaa dekedda lagu bilaabaya wuxuu noqon karaa 6 bilood nidaamka procedure-kii iyo process-kaasi wuxuuna noqon karaa 9 bilood hadduu sanad ka bato wuu buray heshiiskii DB World inagu waxaan ku sheegay inaan waritaan ka heshiinay inaan saliika kareeno bayska isaga kama qaadano rent kira kama qaadano waxaan ku sheegay inaan waritaan ka heshiinay inaan saliika kareeno bayska isaga kama qaadano rent kira kama qaadano waxa uu dhamaaday xilligii aan wax qarin karaysay wallahi uu dhamaaday oo billaahi uu dhamaaday waxa maanta caddaatay shacbiga reer Somaliland in kulmiye shacbigiisa calankiisa iyo ciidiisa khiyaameeyay sirmaqabeel loo saara siilaanyi wuxuu jabiyay dastuurka wuxuu khiyaameeyay shacbigii wuxuu himiladoodii ku raday hog madow oo ay adkaanayso in dib looga soo saaro wuxuu mutaystay in maxkamad la hor keeno oo lagu qaado khiyaamo qaran madaxweyne muuse biixi cabdi wuxuu qayb ka ahaa shirqoolka iyo dhagarta kulmiye u maleegay shacbiga Somaliland dunida dambaar heer guura hogaamiye kastaan dadka shacabkiisa ayaa mudnaanta leh oo ma jirto dalal diin ku shuraakooba ama sunni iyo shiico saldhigya laysu siiyaaye Somaliland sunninimadii xulufada Sacuudiga kuma taanaysay maxay u jartay asadeena ku wajahan waddanka Yaman annaga siyaasadaydu waa taa waxa weeye waxaanu la jeeninahay oo la jaalnahay dawladaha isbahaysiga waddamada carabta ee sunniga ah labalabayn mayno annagu waxaanu nahay fariiqada shiicada ma nihin ee waxaanu nahay fariiqada sunniga abaan ummaddani waa sunni marka iminkaba partial bayno dhexdhexaad ma nihin inkastoo isbedelada dunida guudkeeda ka dhacaya rabitaan shacab lagu meel mariyo inta aad ka xasuusataan bulshadii miidaanu taxriir shacabkii ku hagoogtay isku daygii afgambiga Turkiga rayidkii malaayiinta ahaa ee Itoobiya ku sanduleeyay isbedelada geeska wada gaadhay hase yeeshee halkan waa Somaliland dhibaatada dadweynaha haysata ayaa u muuqata mid raad ku leh burburka qulubtooda loo geystay oo beentiyo go'doomintu ay gow ka tahay taasoo ah tan keentay ari jirka ardayga odayga iyo aqoonyahanka shahaadooyinka xambaarsan dhammaantoodba inaana xisaabta ugu jirin tagtadii shalay tan taagan maanta iyo tu soo socota toona waxayna u muuqdaan bulsho loo carbiyey u qurqursanaanta noocyada gumaysiga oo kan maskaxdu kow ka yahay heshiiskii madaxda Somaliland gacanta uguma jiro madaxda Soomaaliyana way baafinayaan barbari way maqan tahay madaarkii military ee saldhig ahaanta loo bixiyena waa dhammaad dhismihiisii waxaaba ka sii daran saldhig labaad oo aan xataa been iyo run cidna loo sheegin kaasi oo isna dhismihiisa socdo Somaliland waxay ka macaashtay ma muuqdaan kolka laga reebo tobaneeyo laba madaxweyne ka mid yihiin oo taajiray iyo tiraba 3-4 tijaar oo iyana tanaaday
baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxay hore cod aqlabiyada ugu ansixiyeen laalista heshiisyadaasi aan cidinahayn hase yeeshee madaxweyne Farmaajo oo qaraarkaasi baarlamaanku ilaa iyo maanta hor yaalo kuma dhici karo inuu qalinka ku duugo ama meel mariyo oo waxa hortaala halis iyo dacwado Soomaaliya lagaga garheli karo waa maxay sababtu maxaase madaxweyne Farmaajo ilaa iyo haatan u raadinaya heshiiskii rasmiga ahaa iyo cidda saxeexday maxaa xulufada Sacuudiga odayga uu u yahay galgalyadii Farmaajo isaga dhaqamareen sidee wuxuu jiraa waxa hubanti la'aana oo la yaqiinsan yahay in heshiisyadaasi saldhigyada iyo dekada berbera uu qalinka ku duubay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake xilligii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud tan ayaa halka imaaraadku kalib haysto sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliya ugu maaran la yahay shirqoolka maafiyada Carbeed ku hantiday berbera waxay seetani sahayatay xiriirkii imaaraadka iyo Soomaaliya hore uga dhaxayn jiray waxaanu helay codad abaal sheegasho oo madaxdii Soomaaliya ee waqtigaasi iyo sharaakiishii imaaraadka dhex maray xilligii doorashadii dawladda Soomaaliya kuwaasi oo aan xilligan suurtagal ahayn inaanu baahino sababo isbarkan awgeed baahida ugu weyn ee bulshada gurmad iyo baraarujin ugu dhow oo ah helitaanka hay'ado warbaahineed oo ka madax bannaan xanjo meel ku dhegan iyo mashaariicaysi malafsi iyo masaariif dan gaar ahaaneed iyo kaabayac mushtarayn mihnadeed ayaa suurtagelinteedu tahay midda keliya ee horseedi karta isla xisaabtan jihayn bulsho iyo helidda shacab isku dhawaaqa oo doonistooda siyaasiga ku shaqeeya 9 sannadood ee talada kulmiye ee Senate gacanta ku hayay oo waxaasi oo hadimooyina la isu barkiyay dalka iyo dadkaba waxaa dib isu xasuusin mudan taariikhaha dhacdooyinkii lagu xasuusto madaxweynihii mayalka adka daahirayaal kaahin oo tusaalayaasha maanta loo soo qaatay ay ka mid tahay dhacdadii sanadkii 2010 xilligii dawladdii Faransiiska xarakada al-shabaab ka haysteen muwaadin dalkaasi u dhashay taasoo al-shabaab Faransiiska ku xidhay inay kaga bedelato soo deynta saraakiil shabaab ah oo xukuumaddii daahirayaal kaahin ka qabatay xarakada al-shabaab kuwaasi oo Hargeysa ku xidhnaa xilligaas waxaa daahirayaal kaahin ka dalbaday Faransiiska inuu kaga bedesho sii deynta saraakiishaasi aqoonsiga Somaliland oo ahaa wax waqtiga la baadi-goobi jiray balse taasi Faransiisku kama yeelin daahiriyaalana toodii ma ogolaanin ugu dambayn mudana riyaale kamuu mid ahayn ururkii SNM halka siilaanyay Muuse iyo adeegayaashooda SNM u badani berbero idil bad iyo berriba ay ku maqan tahay dhulkii danta guud uu ka soo cad yahay dadkii kala qaybin la dhaxalsiiyay xaalkuna allow sahal ku soo idlaaday